kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasushay haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajeynayaa inay hawshaas u guda gasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka annaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxno xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa arrin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaanba labadii kalfadhi oo ugu dambeeyey way isku furmeen oo baarlamaanka fasaxa ma gelin haddana lama geli doono